halkani waa b b c oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemada magaalooyinka qaar facebookga iyo barteenna internetka ee b b c somali com kulanti wacan oo wanaagsan ee khaarta hawada inagala xiriirtahay meel kastood inaga maqlaysaan waa duhurnimo talaadaha 12 bisha abriil sannadda 2022 arrimahan uu barnaamijka duhurnimo idinkugu haynana waxaa ka mid ah saraakiisha bariga Ukraine oo sheegay in dagaal joogto ah ay halkaas kula galaan ciidamada Ruushka xilli labada dhinacba ay ciidamo badan gobolkaas ku daabulayaan hablo la baxay hooyo kaaba oo Hargeysa gacan ku siiya hooyooyinka danyarta ay meheradahoodii ku gubteen suuqa Waaheen oo ka warbixiyay dareenka hooyooyinka ay la kulmeen والله dareenkooda markay ku waramayaan wad ilmeynaysaa ama wad ka qiiranaysaa markii xaaladdu ku sugan ku sheegaan hooyo waxay ku sheegaysaa inay halka kaariyoon ay ku biidi jirtay 16 caruur ah oo agoon ah kadibna xaaladaas wad garan kartaa hooyo kaariyoon ka soo saaraysay 16 qof waxay cunayeen waxay xidhanayeen iyo waxay wax ku baranayaan iyo badii maxkamadda caalamiga cadaaladda ay u xukuntay Soomaaliya oo ay wali Kenya ka faa'iideysanayso waa tahay qodobadaasi kuwa kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan ay wadajirka u soo saareen Kawtar Maxamed Cabdullaahi iyo Cabdulqaadir Yuusuf Cali anigu Cabdi Ibraahim Cagaarna in la socodsiinaya balse marka hore dhegeystayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Xasan Sheekh Umar mahadsanid Cabdi Fitaax Ukraine iyo Ruushka ayaa ciidamo ku daabulaya gobolka Donbas ee bariga dalka Ukraine iyadoo Moscow ay diiradda saarayso weerarada ciidamadeedu ay geysanayaan gudoomiyaha Donetsk ayaa BBC-da u sheegay in maalintii oo dhan ay dagaal halka ka socdaan maalin walbana ay ka socdaan xadka u dhaxeeya labada dhinac ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine Irina Vereshchuk ayaa waxay ku eedeysay ciidamada Ruushka in ka badan 500 oo haween ah oo rayid ah kana soo jeeda Ukraine oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Ruushku in loola dhaqmo siyaabo bahdilnimo ah oo isugu jira kufsi iyo garaacid waxa ay ka xiireen madaxa mar walibana waxay ku qasbayeen inay dharka dhigtaan oo ay isqaawiyaan waxay meel kaga dhaceen sharaftooda waan ka warhayaa waxyaabaha ku gadaaman kufsiga wayna ii muuqataa marka waa inaan tallaabo qaadno waa inaan is adkayno oo aan xoojinno jiritaankeenna wasiirka difaaca Britain ayaa sheegay in weerar kasta oo loo isticmaalay hubka kiimikada kana dhacay Ukraine oo horseedi doono ku dhaqaaqida dhammaan fursadaha uu sheegay inay miiska saaran yihiin James Heaby ayaa sheegay in fursadahaasi ay ka mid noqon karto jawaab ka baxsan NATO hadalkan ayaa imaanaya xilli ay soo baxayaan warar aan la xaqiijin oo sheegaya in Ruushka uu adeegsaday gudaha magaalada Mariupol ee dalka Ukraine hubka kiimikada wafuud caalami ah oo hogaamiyaal ku socda magaca diimo kala duwan ayaa maanta booqan doona Ukraine kooxda booqashada ku tagaysa dalkaasi waxaa ka mid ah wadaadda muslimiin ah Buddhiste iyo Hindus iyo kuwa kale waxaana la sheegayaa in halka ay u tagayaan inay soo arkaan xaaladda isla markaana ay isku dayaan in arrimahan ay wax ka qabtaan gaar ahaan dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhaxeeya wararka kalena waxaa ka mid ah dalka Sri Lanka waxa uu wajahayaa dhibaato dhaqaale waxaana dawladdu ay ku dhawaaqday in si ku meel gaar ah loo hakiyay bixinta deynta dibadda bangiga dhexe ayaana sheegay in loo baahan yahay in diiradda la saaro bixinta alaabta muhiimka ah ee la soo dejiyo halkii laga welweli lahaa deynta dibadda ugu dambeyntiina waxaa la yara qafiifiyay xanibaadda uu sababay COVID-19 ee magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha kadib hoos u dhac ku yimid faafitaanka cudurka tan iyo bilowgii bishan tallaabadan ayaana jawaab u ah cabasho ka timid dadweynaha oo la xiriirta cuntadii oo gabaabsi noqotay warkii caalamku waa naga intaa aad baad u mahadsantahay Xasan Sheekh Umar iyo kaasi wararka caalamka ayuu nala socodsiinayay dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka aynu ku bilownaa sida aad warka caalamkaba ku maqlayseen Ukraine iyo Ruushka ayaa ciidamo badan oo military waxa ay ku daabulayaan gobolka Donbas ee bariga dalkaasi Ukraine xilli Moscow ay diiradda duulaankeeda u weecisay aaggaasi kadib in ka badan 6 toddobaad markii uu bilowday dagaalka Ukraine
barasaabka gobolka donetsk ayaa isna waxa uu sheegay in ruushku uu guutooyin cusub halkaasi kusoo daabulaya ukrainna waxay sheegtay inay baarayso warar aan la xaqiijin oo sheegaya in ruushku uu gudaha magaalada mariupol ku adeegsaday hub kiimika. faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya cabdulqaadir yuusuf cali. maraykanka iyo britain ayaa sheegay inay baarayaan warbixinada la xiriira in ciidamada ruushka ay hub kiimika ah u adeegsadeen in ay ku weeraraan koonfurta magaalo dekedeedka ee ukrain. xoogaga azof ayaa sheegay in ciidamada ukrain ee ku sugnaa maripol uu ku dhegay naqaska kadib markii aaggaasi martay diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn oo laga leeyahay ruushka. afhayeen u hadlay aqalka bentagonka oo ku sugan washington ayaa sheegay in xaaladda si taxadar leh loo kormeerayo. xogayaha arrimaha dibadda ee ingiriiska Liz Truss ayaa sheegtay in UK ay la xisaabtami doonto Kremlinka mar haddii la xaqiijiyo warbixintaasi. waxa ay sheegtay in isticmaalka hubka kiimikada ah uu sii hurin doono dagaalka Ukraine. dhanka kale maamulka Ukraine ayaa sheegay inay baarayaan kiisaska haweenka ay kufsadeen ciidamada Ruushka. waxay diiwaangeliyeen dembiyada lagu soo eedeeyey kuwaasi oo ka mid ah boqolaal kiis oo gabadfal ah oo ka dhana rayidka. wariye ka tirsan BBC-da ayaa dhegaystay qof markhaati ah wuxuuna helay caddaymo muujinaya in haween reer Ukraine ay kufsadeen askarta soo duushay. aqalka Kremlinka ayaa gaashaanka u daruuray in ciidamadooda ay geysteen dembiyo dagaal. Ukraine ayaa ku baaqaysa in la sameeyo maxkamad gaar ah oo ay qaramada midoobay diyaariso si shakhsi ahaan Vladimir Putin loogu qaado eedeymaha dembiyada dagaal ee kufsiga uu ka mid yahay. cabdulqaadir yuusuf cali aad ayuu mahadsan yahay. markana 6 bilood ayaa laga joogaa tan iyo markii maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ay soo saartay xukun ay intiisa badan ugu riday dhinaca Soomaaliya ee murankii badda ee dalka kala dhexeeyay Kenya. maxkamadda qaramada midoobay ayaa waxa ay Soomaaliya siisay inta badan aagii lagu muransanaa ee badweynta Hindiya kaas oo dhan 38,000 oo mayl oo isku wareega. saddex xagalkaas ayaa waxaa loo malaynayaa inuu ceegaago shidaal iyo weliba inay qani uu ku yahay dhanka kalluumaysiga. Kenya waxa ay gaashaanka u daruurtay xukunka arrintaas oo sii kiciyey walaaca laga qabay in uu sii halaabo xiriirkii ka dhexeeyay Nairobi iyo Muqdisho. kalluumaysatada ku sugan degmada Lamu ee Kenya waxa ay iyagana wacd ku mareen inaanay dhagjila ku siin doonin xukunkaasi ayna kasii kalluumaysan doonaan aagga lagu muransanaa. wariyaha BBC-da Emmanuel Ugunza ayaa halkaas tagay warbixintan oo Xasan Cali Geeli inala socodsiinaya ayuuna inoo soo diray. waa xilli hore oo aroor ah waxaana Abubakar Taalib iyo kooxdiisa ay haatan isu diyaarinayaan inay aadaan gudaha badweynta si ay halkaasi uga soo kalluumaystaan. ku dhowaad muddo 30 sano ah ayay sidaan samaynayeen maalin kasta. inta aan la bixin ka hor waxay eegayaan qalabka ay wataan sida shabaagta, xargaha iyo inay sitaan cunno iyo shidaal ku filan. Taalib ayaa ogolaaday inuu na tuso xuduudda biyaha ee waddamada Kenya iyo Soomaaliya. biyahaasi oo muddo qarniyo ah qoyskiisa iyo qoysas kale oo degan magaalada Lamu ay noloshooda ku xirnayd. balse haatan oo aan dhaqaaqayno xaaladdu ma ahan sidii hore. qof kastaana halkaasi ma tagi karo. waa inuu qofku u bareeraa inuu ka soo kalluumaysto biyahaasi lagu muransan yahay. dhammaan dooniyahan aad aragto waxa ay ka soo jilaaban jireen biyaha Soomaaliya. hadda waa shaqo la'aan oo kalluumaysatada ma haystaan waxay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda muranka labadan wadan awgi. inka badan 70% dhammaan kalluunka lagu iibiyo jasiiradda Lamu waxaa laga soo dabaa biyahaasi lagu muransan yahay ee ku yaala badweynta Hindiya. aaggaasi ayaa qani ku ah noocyada kala gedisan ee kalluunka. waana sababta kalluumaysatada sida Taalib oo kale ay u arkaan meeshaasi inay tahay meel aad muhiim ugu ah noloshooda. koti itapitisha moja kwa moja ukipokonywa Kenya kupewa Soomaaliya. haddii uu dhaqangala go'aanka maxkamadda waxa uu nooga dhigan yahay geeri. waxaan ka cabsi qabnaa inay ka dhalato saamayn ballaaran. waxaa suuragal ah in argixisada ay ka faa'iidaysta kalluumaysatada shaqala'aanta ah oo ay ku biiraan sababtoo ah ma haystaan wax kale oo ay ku noolaadaan. maxaa yeelay halkan waa meesha keliya uu Alla na siiyey. marka maanta waxaan sida ajaaniibta u noolnahay ismaamulkeenni Lamu. ni bora ndani ya Lamu County kuliko wazaliwa watu wa Lamu County. rajada in Taalib iyo dadka la mid ah ay meeshan ka kalluumaystaan waxa ay ku xiran tahay cidda gacanta ku hayn doonto. cid kasta oo maamusha biyahaana waxa ay mustaqbalka rajo ka qabtaa inay hesho shidaal iyo gaas aad u tiro badan. waxaana dawladda Soomaaliya ay bilowday tallaabooyinkii ay ku ilaashan lahayd biyaha baddeeda. dhawaanun ayaa la furay xarunta ciidamada badda ee Soomaaliya oo laga furay magaalada Muqdisho. mashruucaasi iyo tababarka ciidamada khaaska ee ilaalada xeebaha Soomaaliya ayaa waxaa maalgelinayay Midowga Yurub.
Tim Lardner waxa uu ka tirsan yahay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. qarashka guud waxa uu ahaa ilaa 3 milyan oo euro balse natiijada ugu dambaysay ayaa noqotay in ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa badda ay yeelan doonaan karti wax ku ool ah oo aad u badan si ay uga howlgalaan xeebaha Soomaaliya si loo xaqiijiyo in dambiyada badda la dhimo si hufanna looga wada shaqeeyo arrinta. Haddii aan dib ugu laabanno magaalada Lamu waxaan halkaasi kula kulannay Bwana Shishi oo ah ruugcada kalluumaysato ah waxa uuna haatan miisaan saaraya wixii uu maanta soo qabsaday. Maalintu waxay u ahayd mid wanaagsan oo muddo yar oo saacadaha oo ku jiray badda gudaheeda waxa uu soo helay in ka badan 800 oo kiilo oo kalluun ah. hase yeeshee su'aalo badan ayaa weli ku gaadaaman mustaqbalkiisa iyo kalluumaysatada kaleba. waxaana laga saaray meel walba oo ahaan jirtay goobihii kalluumaysiga. ma hayno wax kale oo aan ka ahayn inaan ku sii soconno biyaha hadda la siiyey Soomaaliya sababtoo ah ma jirto wax kale aan samayno. ma faraxsanin waxaanan rabnaa in dawladda ay soo farageliso. waxaan leenahay carruur aan quudinno oo kharashaadka iskuulka naga sugaya. nolosheennu waxay gebi ahaanba ku xidhan tahay kalluumaysiga. wax kale ma hayno. haddii kalluumaysigu dhammaado waxay sidoo kale noqon doontaa dhammaadka nolosheenna. sanadkii 2018 maxkamad ku taala Kenya ayaa dawladda Kenya ku amartay inay magdhow siiso kalluumaysatada reer Lamu isla markaana ay u raadiso shaqo kale oo ka duwan mid ay haatan hayaan. 4 sano ayaa haatan ka soo wareegtay xukunkaasi. ilaa haatanna dawladda Kenya ma aysan furin go'aankaasi. haatanse kalluumaysatada sida Twaalib oo kale waxa ay maalin kasta u kalluun tagaan aagga lagu muransan yahay ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya halkaasi oo muddo sanado ah ay ka kalluumaysan jireen balse cabsidooda ayaa waxa ay tahay in haatan waqtiga uu ka sii dhammaanayo dhulkii ay ka kalluumaysan jireen ee Laamuna uu haatan soo yaraanayo. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. haatanna magaalada Hargeysa halkaas oo hablo la baxay hooyo kaaba oo gacan dhaqaale u fidiya hooyooyinka danyarta ee ay meherahooda ku gubteen suuqa Waaheen ay ka warbixiyeen dareenka hooyooyinkaas. kooxdan ayaa waxay sheegtay in hooyooyinka ay ilmeeyaan markay dhaqaalaha ay dadka ka soo ururiyeen ay guddoonsiinayaan maadaama inta badan dadka danyarta ah ee ay dabkoodu uu damay markii suuqaasi uu gubtay aanay jirin cid hoos u egtay sida ay kooxdaasi sheegtay. haddaba Kaaba Axmed Caydiid waxay ka mid tahay gabdhaha hormuudka u ah ololaha hooyo kaaba. khadka taleefanka ee Hargeysa ayaan kula xiriiray waxaan marka hore weydiiyey waxa uu yahay barnaamijkoodan waxaanay ku jawaabtay. dadka suuqa ay wax kaga gubteena 2 qaybood bay u qaybsamayeen oo waxay ahaayeen qoladii ay wax u kala hadheen oo ama account lacag ku shubtaan ama branchiyo kala halahaadaane iyo qolo kale oo iyaguna aan waxba uga dambeyn oo 12 sano iyagoo fadhiya haddana aan waxba dhigaala aan lahayn kaliya tan maalmeedkooda keedi jiray kuwaasoo caruur ku biilan jiray ama nafahooda oo aan wax uga dambeeyaa jirin. anagu waxaan awood saaraynay marka kuwa wax uga dambeeya aan jirin wixii ka gubtay anaga oo gaarsiinay maanta weerarsa sidoo kale waxaan bixinay lacago dollar ah. maalintii labaad waxaan bixinay lacago laan ah Soomaaliland shilin ah. 2 cisho kadib markaan falcelin wanaagsan aan weynay oo ahayd inay maamulka isbedel ku sameeyaan lacagtaan siinay oo aan ugu cudur daarayna in hooyadaas aan lacagta siinay haddii doonto ay deyn isaga bixisay hooyada dhulka fadhideen lacagta siinay ee aan kula balanay dhulka ka kacdo. 2 cisho kadib markaan ku noqonay hooyadii sidii dhulka u fadhida aan weydiinay maxaa dhulka uga kici weeday waxay odhanaysay lacag ma haysto hadda shalay ama daraado kalena lacag baan siinay. marka qorshihii baan bedelay waxaan bixinay kaariyoono iyo dawaaro de taasoo ah qofka inaad lacag siiso waxa uga qiimo badan inaad siiso wuxuu ku ganacsanayay oo nolol maalmeedkiisa kula soo baxayay. dhaqaalahaas aad alaabahaas ku gadeen xageed ka keenteen? waa su'aal fiican runtii walaalo. dhaqaalahaas waxaan ka keenay Facebook live ayaan soo galay oo aanu dadka ugu bandhigaynay inaan u qaadaamayno dadka danyarta ah. marka lacaguhu waxay naga soo gaadheen dad aad u tiro badan dad intaasoo wadan caalamka kasoo kala hadlayay oo aan la soo tiro koobahayn. ilaa hadda maxaad qabateen marka? 50 hooyo ayaan wax gaarsiinay ama 50 reer ayaanu dab u shidnay saan oran karno. reerahaas oo wax alaale waxay haysteen ay ka raaceen dabkii ka kacay magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa Waaheen. 50 ka hooyo kamid ah lacagaanu siinay 30 kamidana 20 kaariyoonayaal iyo lacag baanu siinay wax ku saartaan
10 ka midna dawaaraanu siinay si ay noloshooda halkii uga sii socoto. dadka markaad u tagtaan qaabkeed waxaad u wadaan ku siisaan? qofkii waan la fadhiisanaa 2-3 qof baan ugu tagnaa sidii qof wax ka iibsanayaan iska dhignaa markaanu ka baayacno ay alaabtina siiyaan xaqii ka sugayeen inaanu $1 ama $2 ama 10,000 laan ahaa inaanu siino aan wax kaga iibsanay ayaanu lacagta badan ama $ka ama laanka kan ugu soo talagalay aanu ugu dhexrinaa bacdi ay noogu ridaysay alaabta. kadibna waad ka tagtaan alaabtii xitaa? kadibna waa ka tagnaa alaabtii waxa bacdaa leh baan ku nidhahnaa kadibna hooyooyinka qaar baa ilmeeya oo ooya qaar baa u qaadan waaya. marka dadkaas markaad u tagtaan ee aad waxaad u wadaan siinaysaan dabcan dareenkooda ayay idinla wadaagaan, dareenkooda siduu ahaa? walaahi dareenkooda markay ku waramayaan waad ilmeynaysaa ama waad ka qiiroonaysaa markay xaaladdu ku sugayiin kuu sheegaan. hooya waxay kuu sheegaysaa inay halka kaaryoon ay ku biidi jirtay 16 caruur ah oo agoon ah. kadibna xaaladaas waad garan kartaa hooyo kaaryoon ka soo saaraysay 16 qof waxay cunayeen waxay xidhanayeen iyo waxay wax ku baranayeen. qaar baa waxay lahaayeen caruurteeda kaliya ta waxaan u helaa waxay wax ku cunaan ee waxbarasho ma dadka danyarta ah ee ay dhibaatada ka soo gaartay dabkii ka kacay suuqa waahayn waa ay badan yihiin. marka ma qayb gooni ayaad xulateen mise dadkao dhan inaad gaartaan baad doonaysaan? baahidu horta mar walba way joogtaa. dadka ay dhibaatada halkaa kasoo gaadheen ma aha dad ama ka tukaa qof ah ama 2 laab ama 3 laab ah, waa dad aad u tiro badan oo kumanaan qof ah. marka maadaama anagu intii aan awoodeynay aan hadda wax gaarsiinay wejigii koobaadna aanu shalay kusoo xidhnay isla maantaba halkii waxaanu ka amba qaadnay wejigii labaad annaga ka gruub ahaan hooyo kaab oo aanu hadda markii hore aanu ku bilownay dhalinyaro ilaa 12 qof ahayd. markii dambena aanu ahayn 6 hablood aanu isugu soo hadnay 6 hablood oo shaqada intii ugu badneed qabtay oo suuqa gelika hore suuqa wareegaysay xoga xaqiiqa u helaan dadkan lacagaha siinayno. marka weli waan wadnaa isla maamulkadana kula hadlayo suuqa ayaan ka soo baxay. waxaa ii ballansan hadda saacad kadib hadii la yiraahdo walaalo reer Suudaan oo aan fursadan uga faa'iideysanay inuu mahad celinayo oo la yiraahdo walaalaha isjecel lacag ay soo direen oo ay soo wakiisheen inaan u qaybiyo 18 hooyo oo duruufaysan oo marxaladaas adag ay soo wajahday. taasi waxay ahayd Kaaba Axmed Ciidiid oo khadka taleefankii ugu waramaysay. markana meel ka baxsan xeebaha magaalada Cadan ee wadanka Yemen ayaa waxaa la soo sheegayaa inay ku gubatay dooni u lahaa ganacsade reer Soomaaliland ganacsato kale oo isla deegaankaasi aan ay u rareed. doontaas waxaa saarnaa hanti lagu qiyaasay in ka badan $1 milyan Mareykanka ilaa iyo haatanna lama oga waxaa sababay inay gubato. haddaba Mustafa Ibraahim Ciise waa ganacsadihii ay u rareed inta badan doontaasi gubatay. Xasan Galayr oo Hargeysa kula kulmay ayuu u waramay. waxaanu ka mid ahay mulkiilayaasha ay kaga gubatay doontu wadanka Yemen gaar ahaan Cadan. waxaanu doontaa ka soo rarnay Cadan baanu ka soo rarnay. waxaanu soo saarnay shixad subaga iyo caana isku jira oo 20,000 subaga iyo 7,000 caana. waxaa kaloo saarnaa 5,000 karto oo markaa anagu aanan ka warhayn laakiin ganacsada kale leeyahay. doontaasi anagii dhammaanteed noo rarnayd dee wixii ilaahay qadaraa waa ilaahay baa keeno dee marka hore waa ilaahay baa keenay alaabtan. waxaanu ka sugaynaa ilaahay inuu cawad khayr qaban naga siiyo. marka hore dab baa qabsaday baa la yidhi doontaasi. kadibna waxa aanu u dirnay oo qolada inkaan cali ducaale ee Somalilanderka doonta lihi uu u diray bal in la rescue gareeyo. waxa tagay taagi markii uu baktiyay doontii la baktiyay waxay yiraahdeen jiida oo geeyayn tuulo yar oo u dhow si loo garanaysa halka loogu eego way degtay. markaa hanti intee lag baa adiga Mustafa ahaan ka saarneed doontaas? doonta waxa saarnaa xoolo exactly $716,000 baa aniga iga saarnaa. inanka kale Soomaaliga wali aanan xaqiiqsan magaciisana 5,000 kartoon baa ka saarnaa. ninka ganacsadaha ee reer Somaliland ee doonta lahaana doontu saasi kaga gubatay. dee wax walba waa qadar Allah oo wixii ilaahay keeno la dhaafi kari maayo. doontu dekedeebay ka soo sharaacatay? waxay ka soo sharaacatay wala dekada Cadan bay ka soo sharaacatay 5 galabnimo ilaa 4 barkii bay ka soo baxday. markay xogaa ka socotay ilaa kiiloomitir adugu ilaa 2 miles bay yiraahdeen ayuu dabku ka kacay. dabka wax kooskariyay ilaa imika ma hayno laakiin doonta dabkaasa kooskariyay. doontu doon weyn oo 650 tan ay ahayd. marka sida warka imika hordhacay aanu hayno waa inta. yaa soo gurmaday dadkan soo gurmaday ee aad leedahay way baktiinayeen? marka waxa soo gurmaday cidda shirkad weyn oo aanu la macaamilo ayuu meesha horta base weyn ku leh. macaamilo badan oo kalena de waanu lahayno meesha waxaanu hayn muddo dheer baanu ka shaqaynaynay wadanka Yemen. marka
influence badan baanu isticmaalnay bal sidii doonta horta loo badbaadin lahaa ee loo bakhtiin lahaa laakiin qadarka alla kumay dhicin in lagu guulaysto run ahaantii way bakhtiyeen oo mishinkii hore ayaan ugu talagalay way bakhtiyeen laakiin damage weyn baa marka hore sii gaadhay doonta oo xagga hoose ka gaadhay dabeetana markii habeenimana runtii way noqotay oo waxaa yaraaday ma garanaysaa dee is araggii iyo waad garanaysaa waddan dee meel aduu iska tuula ah kadibna dagaalana ka socdaan oo aan infrastructure-kii waxaasoo dhammi aanu dhammaystirnayn run ahaantii taasaa sii kaliftay inay doontaasi sii degto waayo markii la jiidayba isla markiiba doontu way degtay si ay warka noogu sheegeen in hordhac ah subag iyo caanaha saarnaa baa tidhi subaggaa iyo caanahaas bal u faahfaahi bulshada subagu waa subagaanu halkan in lagu isticmaalo in riijinka lagu isticmaalo caanahana waxaa lagu isticmaalaa somalilan hoostuu yaallay caanuhuna xagga sare yaalleen markaa run ahaantii dee waa qadar allown waa waxaanu ka soo rari jirnay muddo dheer baanu ka soo rari jirnay oo dee aanu kusoo nabadgelaynay waa caanahan moorkaa inta badan waa caanahan caadiga ah ee ku jira qardaaska yar ee dee 250 milya dee caadi loo cabo ee Soomaalidu cabto caanaha weeyaan waa caanaha alhana la yiraahdaa suuqa Soomaaliland aad baa looga isticmaalaa waa caana aanu imika aad u keenaynay intan dambe subaga isaga long time baanu keenaynay waa subag dee ummadoo dhamiyo og tahay oo aanu tirooyin badan ka keenayno dee qadarka luun baa dhacay wixii ilaahay soo doonana dee qof bilaadan oo joojin karaa ma jiro laakiin dee waynaanu samirno kaasi waxa uu ahaa mustafa ibraahim ciise oo u ranayd doontii ku degtay dhanka iyo cadan oo u warramaya xasan galeer markaanse baafinta maanta waxaa stuudiyaha b b c da nairobi si toosa idinkaga soo tabinaya anigoo ah jamaal axmed cabdiraxmaan iyo fartuun ismaaciil fartuun mahadsanid jamaal baafinta ugu horreysay maanta waxay naga soo gaartay muslime maxamed aadan waxay baafinaysaa ibraahim maxamed aadan waxaa u wardambeysay isagoo ku sugan baardheer sanadii 1991 haddaba haddii uuna maqlayo ibraahim maxamed aadan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo muslime maxamed aadan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay malkaadiida siyaad kuusow gaaya waxa uu baafinayaa faadumo kuusow iyo bashiir kuusow gaaya oo ugu wardambeysay iyagoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2014 haddaba haddiina maqlayaan ama ay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo siyaad kuusow gaaya iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay malkaadiid abukar cabdulaahi maxamed waxa uu baafinayaa isaaq cabdulaahi maxamed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada baydhabo sanadii 2006 haddaba haddii uuna maqlayo isaaq cabdulaahi maxamed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo abukar cabdulaahi maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay malkaadiida xuseen cabdi waxa uu baafinayaa zaynab cali xasan iyo jaabir cali xasan oo ugu wardambeysay iyagoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2003 haddaba haddiina maqlayaan ama jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo cali xuseen cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay malkaadiida saalax ismaaciil shacbaan waxa uu baafinayaa sacdiye cabdi shacbaan waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan luuq sanadii 1994 haddaba haddii ayna maqlayso sacdiye cabdi shacbaan ama jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo saalax ismaaciil shacbaan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay malkadhiidha xasan cumar aadan waxa uu baafinayaa fardooso cumar aadan iyo fartuun cumar aadan iyo mahad cumar aadan oo ugu wardambeysay iyagoo ku noolaa dalka Itoobiya sanadii 2000 haddaba haddayna maqlayaan ama jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo xasan cumar aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay malkaadiida xaawo isaaq cabdi waxa ay baafinaysaa aadan isaaq cabdi waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada baydhabo sanadii 2006 haddaba haddii uuna maqlayo aadan isaaq cabdi ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xaawo isaaq cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay malkadhiidha maxamed xuseen cabdi waxa uu baafinayaa xaliimo yuusuf cabdi oo ugu wardambeysay iyadoo ku noolay dalka Soomaaliya sanadii 1990 haddaba haddayna maqlayso xaliimo yuusuf cabdi ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maxamed xuseen cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boqol maanyo maxamed aadan xuseen waxa uu baafinayaa faarax xasan xuseen waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan garbahaare sanadii 1991 haddaba haddii uuna maqlayo faarax xasan xuseen ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed aadan xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay malkadhiidha fardowso suldaan kheyre waxay baafinaysaa saadaam suldaan oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2003 haddaba haddii uuna maqlayo saadaam suldaan ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo fardowso suldaan kheyre iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boqol maanyo
xaliimo geedi cali waxay baafinaysaa xamso isaaq maxamed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan boorama sanadii 2010 haddaba haddii ayna maqlayso xamso isaaq maxamed ama jirta cid garanaysa fadloona warkeeda hala gaarsiiye xaliimo geedi cali iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boqol maayo. xuseen cali maxamed waxa uu baafinaya faadamo cabdulaahi cabdulle ugu wardambeysay iyadoo ku nool dalka Kenya sanadii 2011 haddaba haddii ayna maqlayso faadamo cabdulaahi cabdulle ama jirta cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xuseen cali maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. faysal guhaad guudow waxa uu baafinayaa dadka kale ah cabdiyo cali guudow iyo maxamed cabaas guudow waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan muqdisho sanadii 2000 haddaba haddii ayna maqlayaan cabdiyo cali guudow iyo maxamed cabaas guudow ama jirta cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo faysal guhaad guudow iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay malkadhiidha. faadi nuurdiin isaaq waxay baafinaysaa cabdulaahi macalim isaaq iyo xamdi macalim isaaq ugu wardambeysay iyagoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2012 haddaba haddayna maqlayaan ama jirta cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo faadi nuurdiin isaaq iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. faadumo maxamed nuur waxay baafinaysaa aadan maxamed nuur waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan baydhabo sanadii 2009 haddaba haddii uu na maqlayo aadan maxamed nuur ama jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo faadumo maxamed nuur iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay malkadhiidha. caasho cumar cabdirasaaq waxay baafinaysaa cabdirasaaq cumar baashow ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2014 haddaba haddii uu na maqlayo cabdirasaaq cumar baashow ama jirta cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo caasho cumar cabdirasaaq iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. saruure aadan hilowle waxay baafinaysaa maxamuud cabdulaahi hilowle waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan baardheer sanadii 2018 haddaba haddii uu na maqlayo maxamuud cabdulaahi hilowle ama jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo saruure aadan hilowle iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay malkadhiidha. nuuriyo baadow biriq waxay baafinaysaa zahro baadow biriq oo ugu wardambeysay iyadoo ku nool dalka Soomaaliya sanadii 2014 haddaba haddayna maqlayso zahra baadow biriq ama jirta cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nuuriyo baadow biriq iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. saynabo uushay xasan waxay baafinaysaa farxiyo uushay xasan waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan jigjiga sanadii 2011 haddaba haddii ayna maqlayso farxiyo uushay xasan ama jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo saynabo uushay xasan iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay malkadhiidha. bilaal burhaan cabdulaahi waxa uu baafinayaa zahro burhaan cabdulaahi oo ugu wardambeysay iyadoo ku nool dalka Soomaaliya sanadii 2012 haddaba haddii la maqlayso zahro burhaan cabdulaahi ama jirta cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo bilaal burhaan cabdulaahi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. xabiibo cali maxamed waxay baafinaysaa cadow cali maxamed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Soomaaliya sanadii 2008 haddaba haddii uu na maqlayo cadow cali maxamed ama jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xabiibo cali maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay malkadhiidha. marwo cabdikariin cabdulaahi waxay baafinaysaa faadumo cabdikariin ibraahim oo ugu wardambeysay iyadoo ku nool dalka Soomaaliya sanadii 2015 haddaba haddayna maqlayso faadumo cabdikariin ibraahim ama jirta cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo marwo cabdikariin ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. cabdulaahi maxamuud caalim waxa uu baafinayaa abukar maxamuud caalim waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Liibiya sanadii 2017 haddaba haddii uu na maqlayo abukar maxamuud caalim ama jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdulaahi maxamuud caalim iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay malkadhiidha. cabdiqaadir cabdulaahi cabdi wuxuu baafinayaa xamdi cabdulaahi cabdi oo ugu wardambeysay iyadoo ku nool dalka Soomaaliya sanadii 2011 haddaba haddayna maqlayso xamda cabdulaahi cabdi ama jirta cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cabdiqaadir cabdulaahi cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. xabiibo cali maxamed waxay baafinaysaa isaaq cali maxamed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan baydhabo sanadii 1991 haddaba haddii uu na maqlayo isaaq cali maxamed ama jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xabiibo cali maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay malkadhiidha.
carab maxamed cabdi waxa uu baafinayaa cabdi carab maxamed oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka soomaaliya sanadii 2009 haddaba haddii uuna maqlayo cabdi carab maxamed ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo carab maxamed cabdi iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya. cabdirasaaq maxamed cali waxa uu baafinayaa aadan xasan cali waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Kismaayo sanadii 1991 haddaba haddii uuna maqlayo aadan xasan cali ama jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cabdirasaaq maxamed cali iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Malkadhiidha. saalax cumar cilmi waxa uu baafinayaa xuseen cabdi cilmi oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 1991 haddaba haddii uuna maqlayo xuseen cabdi cilmi ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo saalax cumar cilmi iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya. farxiye xasan cali waxa ay baafinaysaa xasan cabdi maxamuud waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Hargeysa sanadii 2000 haddaba haddii uu maqlayo xasan cabdi maxamuud ama jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo farxiye xasan cali iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Malkadhiidha. baafinta ugu dambeysay maanta waxay naga soo gaartay carab maxamed cabdi waxa uu baafinayaa cabdiweli maxamuud oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka Germany sanadii 2000 haddaba haddii uu maqlayo cabdiweli maxamed ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo carab maxamed cabdi iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya. baafintiina waa naga intaa. idaacaddiina inta ayaan kusoo gabagabaynayaa waxaynu balanaa 5 galabnimo inta ka horeysa nabadgelyo.